daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka oo aad kala socotaan Suldaanka TV iminkana dawladda Soomaaliya oo ka jawaabtay talaabooyinkii dawladda Kenya ay qaaday hal ruux oo ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay degmada Dharkiinley wasiirka warfaafinta oo ka hadlay qaraxii gaariga loogu adeegsaday ee maanta ka dhacay 5 ruux oo ku geeriyootay qarax gaari loo adeegsaday ee kontaroolka ciidanka ee daljirka daasoo u dhow xildhibaanada golaha shacabka oo maanta kulan la leh wax ka bedelka sharciga iibka iyo Kenya oo jawaab adag ka bixisay dalab ka yimid ururka al-shabaab oo afdub u haysta dhaqaatiirta Kuuba. Dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay war-saxaafadeed ay ugu jawaabayso talaabooyinkii ay qaaday dawladda Kenya ee ku aadan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo loo diiday dalku galka Kenya iyo baaritaanada wajeer diyaaradaha Muqdisho ka baxa ee halkaasi mara. Qoraalka oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay qadarinayso dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Kenya balse ay ka xun tahay ficilada dawladda Kenya ay ku kacday. Dawladda Soomaaliya waxay si gaar ah ugu walaacsan tahay in xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya oo dhawaan u safray magaalada Nairobi kuwaas oo ku jireen wasiiro iyo xildhibaano ay xanibaad ku sameeyeen saraakiil ka tirsan hay'adda socdaalka Kenya baasaboorradoodii laga qaaday kabacdina dib loogu celiyay Muqdisho. Sidoo kale dawladda Soomaaliya waxay muujinaysaa walaac ay ka qabto in dib loo soo celiyo baaritaankii dheeriga ahaa ee lagu sameeyo Soomaalida safarka ku aadan Nairobi iyadoo oo qasab loogu dhigay inay magaalada wajeer ku hakadaan si baaritaan amni loogu sameeyo. Arrintan waa mid ka hor imaanaysa heshiiska ay labadeena dawladeed hore u galeen ee ku saabsanaa duulimaadyada Muqdisho iyo Nairobi oo ahaadaan kuwa toos ah. Talaabooyinkaasi waxay carqalad ku yihiin xiriirka walaaltinimo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Sidaas darteed dawladda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dawladda Kenya inay xiriiriso carqaladaha ay keeni karaan talaabooyinkaasi oo ay ilaaliso xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeya labadeena dal isla markaana tixgeliso dabciga diblomaasiyadeed iyo ixtiraamka labada wadan kala mudan yihiin. Dawladda Soomaaliya waxay dhankeeda ka go'an inay ilaaliso xiriirka saaxiibtinimo ay la leedahay dawladda Kenya waxayna sii wadi doontaa soo dhaweynta muwaadiniinta iyo saraakiisha dawladda Kenya ee Soomaaliya imaanaya. wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka Soomaaliya iyada oo fursadan ka faa'iideysanaysa waxay tixgelin iyo qadarin aad u sareysa u ballan qaadaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Kenya. Iminkana wararka inaga soo gaaraya degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in qarax miino uu halkaasi ka dhacay kaasi oo geystay khasaare kala duwan. qaraxan oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa lala eegtay gaari ay saarnaayeen ciidamada booliska oo marayay wadada ka timaada isgoyska Xoosh ee toos u gasha ex control afgooye. hal ruux oo shacab ah ayaa ku dhintay qaraxaasi halka sidoo kale dhaawac uu soo gaaray askari ka tirsan ciidamada booliska sida goobjoogayaal ay sheegeen. qaraxa kadib ciidamada ayaa riday rasaas fara badan taas oo aysan geysan wax khasaare ah waxaana muddo saacado ah hakad galay isku socodka dadka iyo gaadiidka ee wadada u dhaxaysa isgoyska Xoosh iyo ex control afgooye walow markii dambe dib loo furay. waa qaraxii labaad ee maanta oo Arbacaha ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana xusid mudan in qarax ismiidaamin uu maanta ka dhacay bar control oo ku taala agagaarka taalada daljirka daasoon ee degmada Boondheere kaas oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa looga hadlay qaraxii maanta barqadii ka dhacay meel ku dhow kontaroolka ciidamada Niisa ay ku leeyihiin inta u dhaxaysa daljirka daasoon iyo xabsigii hore ee godka Jilacow. qoraalka xafiiska wasiirka warfaafinta laga soo saaray ayaa wuxuu u qornaa sida tan: wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa si kulul u cambaareeyay qarax ay shabaab la beegsadeen dad barakacyaal ah oo deganaa dhismihii hore ee wasaaradda warfaafinta. wasiirka Maareeye ayaa ugu horeyn uga tacsiyay dadka masaakiinta ee barakacyaasha oo iyagoo alla dartii u sooman al-shabaab ay u waxyeeleeyeen qarax laga soo buuxiyay gaari ayna ka soo gaartay dhimasho iyo dhaawac. wuxuu eebba uga baryay dadkii ku dhintay iyagoo sooman dhammaantood in alle uu siiyo jannadiisa kuwa dhaawacana uu u bogadhayo. wasiir Maareeye ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay weerarada bahalnimo ee al-shabaab shacabka u soo meeleegayaan bisha naxariista iyo cibaadada ee Ramadaan. waxa uu hoosta ka xariiqay in dawladda Soomaaliya aysan marnaba ka daali doonin badbaadinta shacabkeeda. ugu dambeyn wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay si laba jibaaraan gacansiinta ciidamada qalabka sida ee dagaalka adag kula jira kooxda Ogus. waxa uu rajo weyn ka muujiyay in dhawaan la soo afjari doono jiritaankooda. macluumaad dheeri ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawac ah ee ka dhashay qarax gaari loo adeegsaday oo maanta barqadii lagu dhuftay kontarool ciidamada Niisa ay ku leeyihiin nawaaxiga godka Jilacow. dadka goobjoogayaal ah ayaa xaqiijiyay inay arkeen dhimashada ilaa 5 ruux oo askar u badan kuwaasi oo yaalay goobta qaraxa uu ka dhacay. dadka dhintay
waxaa ku jiray sargaalad lagu magacaabo Faay Cali Raage iyo saygeeda oo wada socda islamarkaana gaari ay saarnaayeen goobtaasi marayay. sidoo kale askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay qaraxaasi, kuwaas oo qaarkood la socday ama ilaalo u ahaa mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka. warar aan si rasmi ah loo xaqiijin ayaa sheegaya in qaraxa uu ku dhaawacmeen 2 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, kuwaas oo gaadiidka ay la socdeen meesha uu taagnaa xilli qaraxa uu dhacay. qaraxan gaariga loo adeegsaday ee maanta barqadii ka dhacay Muqdisho ayaa ku soo aadaya iyadoo ammaanka magaalada si weyn loo adkeeyay, isla markaana ciidamada amnigu ay ku jireen xaalado feejignaan sare ah. xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaca ah taariikhduna ku beegan tahay 22 bisha sanaad 2019 waxa ay kulankoodii caadiga ah ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. ajandaha kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee maanta ayaa ah horgeynta wax ka beddelka sharciga iibka qaranka oo mari doona akhrinta koowaad. xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay lagu wargeliyay in maanta oo Arbaca uu ku jiro kulanka baarlamaanka, isla markaana ay soo xaadiri doonaan si akhrinta koowaad loo marsiyo wax ka beddelka sharciga iibka qaranka. xildhibaanada golaha shacabka ayaa Isniintii waxa ay ansixiyeen sharciga batroolka dalka oo aad looga dooday kulamadii ugu dambeeyay, walow inta badan madaxda dowlad goboleedyada ay ka soo horjeedeen. dhinaca kale, warar aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in kulanka xildhibaanada qaarkood ay ku soo hadal qaadeen xiriirka xilligani sii xumaanaya ee Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan arrimaha fiisaha loo diiday diblomaasiyiin Soomaaliyeed. dowladda Kenya ayaa sheegtay in aysan wadaxaajood ku aadayn sii deynta dhaqaatiirta Kuube ee laga afduubtay Mandera aysan la geli doonin ururka argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma oo kulan la qaadatay talaadadii maanta madaxda arrimaha siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Fadira Mongera ayaa sheegtay in Kenya wadaxaajood lacag madax furasho ah ay la geli doonaan kooxdaasi. Mrs Juma ayaa intaa raacisay in Kenya ay sii wadi doonto howlgallada lagu badbaadinayo 2 dhakhtar ee u dhashay Kuuba. Dr. Herrera Kura iyo Dr. Landi Siva ayaa 12 Abriil afduubtay xilli ay ku sii jeedeen isbitaalka magaalada Mandera. weerarka lagu afduubtay howlwadeenadani caafimaad ayaa sidoo kale waxaa lagu dilay sargaal ka tirsan ciidanka maamulka ee Kenya oo loo yaqaan AB-da. toddobaadkii hore ayay ahayd markii odayaal Kenya ay u soo dirtay gudaha dalka ay sheegeen in kooxda afduubka geysatay ay dalbanayeen madax furasho dhan $150 milyan oo Mareykanka ah. dhaqaatiirtan ayaa la sheegay in ay badqabaan, sidoo kalena adeeg caafimaad ay u sameeyeen bulshada ku nool deegaanada ismaamulka Jubbaland oo Al-Shabaab ay maamulaan. booliska Kenya ayaa sheegay in talaadadii ay galeen xawaaladaha ku yaal magaalada Nairobi ay la xiriirtay amar ka soo baxay bangiga dhexe ee Kenya. talaadadii shalay ahayd ayaa saraakiil ka tirsan booliska Nairobi waxa ay howlgal ka sameeyeen 5 xawaaladood oo ay ka mid tahay shirkadda Amal iyo Taj. mas'uuliyiinta amniga Kenya ayaa ku macneeyay in sababaha ay shirkadahani ku tageen ay tahay sidii loo ogaan lahaa hufnaanta iyo hanaanka ay u shaqeeyaan. madaxda shirkadahan iyo guddiga ganacsatada xaafadda Islii ayaa dhankooda goor sii horeysay la hadlay warbaahinta, waxaana ay beeniyeen in la xirayo shirkadahani. si kastaba ha ahaatee, shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa hadal haya maanta howlgallada uu booliska Nairobi ku galay xawaaladaha Soomaalida. wararka aan ka helayna magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in booliska Kenya ay xireen qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida ay ku leeyihiin dalkaasi. qaar ka mid ah shaqaalaha xawaaladaha ka shaqeeya ayaa xaqiijiyay in xarumaha shirkadda Taj iyo Amal ee magaalada Nairobi ay xiran yihiin kadib markii booliska ay yimaadeen oo ay xireen. walaalow xawaalada Taj ayaan rabay inaan lacag ku soo diro, balse waxaa la dhahay waa la xiray oo booliska Kenya ayaa xireen. weli ma ogi sababta, balse ilaa 5 xawaaladood ayaa la xiray, ayuu yiri qof doonayay in xawaalada Taj uu lacag ku soo diro. ilaa hadda booliska Kenya kama aysan hadlin sababta rasmiga ah ee ciidamada booliska ay u xireen xarumaha xawaaladaha. ilaa 5 xawaaladood ayaa la sheegayaa in ciidamada booliska Kenya ay xireen, isla markaana ay joojiyeen shaqooyinkii ay qaban jireen. Kenya ayaa dib ugu soo cusboonaysiisay xiisad siyaasadeed oo labada dal horay uga dhaxaysay. inkastoo arrimahaasi la xaliyay, haddana Kenya lama oga dagaalkan cusub waxa ay kaga gol leedahay.